waa qanjir yar oo ku yaala cunaha qaybtiisa hore. Waxa uu door weyn ka ciyaaraa nidaaminta shaqooyinka muhiimka ah ee jirka sida wadnaha, tamarta, heerkulka jirka iyo shaqooyin kale oo aad u badan. Waxaana laga soo daayaa dheecaanadan kala ah T3 iyo T4. Waa dheecaano ka samaysan walxo kiimikeed kuwaas oo marka qanjirkan uu soo daayo ku safra dhiigga ayaga oo taga bu'da unugga si shaqadii loo idmaday halkaas ugu soo fuliyaan si jirka iskula shaqeeyo. Balse cillado kala duwan ayaa sabab u noqda in shaqada qanjirkan thyroid ee hoos u dhacdo ama badato. Marka dheecaanadan soo deyntooda yaraato, waxaa lagu arkaa qofka calaamado ay ka mid yihiin sida hortiina ka arkaysaan niyad jab, xusuusta qofka oo yaraato, tabar darro iyo daal, maqaarka qofka oo qalala, miisaanka qofka oo ziyaado, qofka oo u dulqaadan waaya qabowga iyo wax la mid ah, caloosha qofka inay fariisato ay socon wayso, caadada inay ka qalqasho dumarka, iyo ugu dambeyn kala goysa xanuun iyo murqo xanuun qofku inuu dareemo. Sidoo kale haddii dheecaanadan soo deyntooda ay bataan oo xadka caadiga ay dhaafaan, ayadana qofku waxaa lagu arkaa walwal fara badan, wadna garaac zaa'id ah, shuban, hurdada qofka oo qalqasha, miisaanka qofka oo si degdeg u dhaca, iyo qofka inuu dareemo kuleel fara badan iyo wax la mid ah. Marka haddii aad isku aragto calaamadahan ama qaar ka mid ah, la xiriir dhakhtar si baaris loogu sameeyo si haddii ciladan ay jirto xilli hore lagaaga daaweeyo. Asalaamu calaykum.